بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaad walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka hadlaynaa xisaabinta canaliska suuqa iyo intriga cashirkii hore cashir la socda weeye casharada aan halkan kusoo duubayo dabcan waxay ku socdaan rules bay ku socdaan iyo nidaam mar walba ruleska casharada aa fahantina waxa aa fahantay sir muhiim ah oo aan aaminsanahay inay naftaada iyo xirfadda aad ku shaqaysan doonti ay wax badan ay ka bedeli doonto dabcan markii laga hadlayo canaliska badi dadku waxay ka aaminsan yihiin wax beginner ah laakiin sirta ugu muhiimsan suuqa kan waa canalka waxaa ka shaqaysanaysa waa canalis isku tagay ama structure ula bax ama naqshado ula bax magacyadood ama batteries magacyadood ula bax waxaa doonta ula bax markay isku tagaana macni sameeyaan canalku markuu keligii yahana macnu sameeyaa marka waxaan ku tusayaa marka xirfadda suuqa fahantay suuqa meelaha uu marayo selka meelaha uu ka sameeyo bayga meelaha uu ka sameeyo dhammaan waxyaabahaas dhan marka aad fahantay waxaan ku barayaa waxaa la oran karaa naqshadan iyo qaabkan hadda aan kusoo bandhigaya keligeed baaba waxaa loo dhihi karaa istaraatiijiyad baa la dhihi karaa waldhahay laakiin mar walba waxaa ku kabtaa inaad fahansan tahay suuqa habku okay muuqaalkan marka waxaan kaga hadlaynaa walaalayaal cashirkan waxaan kaga hadli doonaa xisaabinta canaliska suuqa iyo intriga sida la isugu waafajiyo sida canalkii iyo intrigiisa sida loo xaqiijiyo la isku waafajiyo taas oo kaa caawin doonta wax badan kaa caawin doonta ogowna canaliska suuqu sameeyo haddii ahaan lahayd weekliga haddii ahaan lahayd dailyga iyo haddii ahaan lahayd 4 hourka dhammaantood waxay xisaabsan yihiin waa wax la garanayo canalka inta isbuucii canal dhalata wax la garanayo wey inta dailyga dhacda inta maalintii dhacda canal haddii hal saac loo qeybiyo waa wax la garanayo haddii 4 hourkii la qeybiyo afar saac haddii canaliska maanta dhacaya loo qeybiyo waa wax la garanayo markii canaladii aad xisaabisay oo aad fahantay sida confirmationka u bixinayaan kadib waxaa ka fikiraysaa habkaad uga faa'iidaysan lahayd si dhib yar taasina waxay kaa caawin doontaa wax aada u weyn bay kaa caawin doontaa oo run ahaantii ay ku noqon doonto wax ku farxad geliya bay ku noqon doonta suuqaad iyo nidaamkaadana toosiya okay daily canalka marka walaalayaal naqshadan baa canalada u kala qaybin naqshadan sababta ugu kala qaybina waxa weeye waxaa la rabaa mar walba oo aad canal layliya aragtid maanta mar walba aad joogtid canalada dhici doona maanta waa inaa u kala qaybisaa kuwa fursadda kuu diyaarinaya mid confirmation ku siinaya iyo in aad ka faa'iidaysanaysid hadalkayga waxaan jeclahay inaad si xeel dheer u fahantaan canaliska maanta dhacaya waxaa la rabaa in ku xisaabsan yihiin kow maxaa fiirinaysaa canal waxaad ka fiirinaysaa inuu noqdaa mid ku siinaya fursaddiibuu kuu taagaya fursad sameey correction buu kuu sameynaya canalna muxuu kuu noqonayaa canal maxaa la yidhaahdaa confirmation go-aanka ugu dambeeyay kii aad ku qaadan lahayd kuwa soo socdana maxay kuu noqonayaan kuwii aad ka faa'iidaysan lahayd oo suuqa waxaa la rabaa marka inaad ku jidhi oo faa'iida ka samaysid marka waa inaad xisaabaysaa canaladaas aad ku heli lahayd waa inaad xisaabka ugu socotaa dad professional canaliska dadka professionalka ah canalada 1 2 3 4 5 6 7 bay u tiriyaan xabad bay u tiriyaan waa yaqaanaan waxa dhacaya baa la yaqaanaa kadibna waa laga faa'iidaysanaya okay kasoo qaad waxaa tiri suuqa waxaad jihadiisa waxaa u dirtay sel baa sel u dirtay intrigaaguna waxaad u dooratay tusaale ahaan 4 hour ama 1 hour baa mid u dooratay suuqan maxaa tiri jihadiisii sel intrigana maxaad tiri suuqa kan fursadda intriga ama canalka intri waa maxay canalka aan ka geli doono 1 hour kan ka fiirsanaya dailygu wuxuu ka kooban yahay marka maadaama aad tiri 1 hour baa maanta wax ka trade garaynaya 24 saac oo maanteeda aad shaqaysanaysa ku dhex jirta maxay ka kooban yihiin 24 saac oo maanta ah 24 canal bay ka kooban yihiin oo haddii 1 hour loo fiiriyo marka 24 canal maxay noqonayaan bay isal haddaba
bayga marka loo ingilfangareeyo dhinaca aada suuqa u jahaysay waa entry isfahnay baa jecla haddaba bayga marka loo ingilfangareeyo dhinaca sel dhinaca aada suuqa u jahaysay waa entry suuqa sel baa kasoo raadayso soo maaha selka maadaama sel aad raadinaysa waa in la helaa kanalo bay ah kanaladaas bayga ana uu kanal awood badan uu soo dhaafaa tusaale suuq baa waxaan ka sugayay sel soo maha dhayligii suuq baa sel ka sugayay soo maha suuqan selka ah saan uga faa'iidaysto waa in la helaa kanalis bay ah kanalada maxaa loo yaqaanaa fursad sameeyayaal baa loo yaqaanaa kuwaas ingilfin lagu sameeyo luuqadii hadda meesha ku qorneyd waa maxay taasi ahayd kuwaasoo ingilfin kusoo sameeya bay kanalka bayga u dambeeya ingilfin kusoo sameeya soo jabsada marka maxaa helayaa boqolaal kanal oo markaa jihadeeda aada marka ruulkani waa ruul ka mida si automaatiga tradingka habka u shaqeeya ka mida tradingku habka u shaqeeyo ruul ka mida weeye oo la fahamsan yahay qofku inuu ku baraarugo wax yar oo cajiib badan baa maanta ku tusi doona insha allah inaan si fiican idin fahansiiyaan isku dayaya macnaha naqshada halkan aan kusoo sawiray okay dhayligu marka dhey baa maanta marka 4 hourku markaas 4 hour ka trade garaynaysa 4 hour markaan ka trade garaynayo waa maxay wuxuu ii sameynayaa suuqu 6 kanal buu ii sameynayaa 6da kanal oo suuqu ii sameynayo buy iyo sell bi sameynaya tusaale ahaan suuqa maxaa iri buy baa iri buy ma rabaan uga faa'iidaysto marka buy saan uga faa'iidaysto waa in la helaa sell candle buy asoo ingilfin gareeyo si aan suuqa uga faa'iidaysto marka waxaan hadda aan ka sheekeynayo ruleska hadda aan ka sheekeynayo waxaan ku tusayaa iyagoo cajiib ah waa suuqa waxaan kaa tusiyaa boqolaal fursadood oo nidaamkan iyo candleskan loo xisaabinayo waan kaa tusi doonaa ha iga degdegin insha allah okay tusaale dhayligu wuxuu ku socdaa sel one daygii suuq wuxuu ii joogay meel muhiim ah kadibna muxuu soo sameeyey candle xoogan oo sel buu soo sameeyey candleka xoogan oo selka markuu soo sameeyey si aan suuqa kanselkiisa uga faa'iidaysto 4 hourka markii maanta la yimaado shalay muxuu sameeyey suuqu ingilfin biyo maanta markii la yimaado waa inaan helaa candles buy u socda oo la soo ingilfin gareeyay waxaan ku yiri candles buy u socda oo la soo ingilfin gareeyay waa la helaa xaqiiqatan markii laba waxyaabood iska heshay mar walba u fiirso waxaan ku dhahay ruulka kan iyo nidaamka kan hadda aan kuu sheegayo qofku haddii uu braawiyaado boqolkiiba boqol profit baa noqonaysaa waa maxay wandhigii marka horeysa waa inaad heshaa candle ingilfin ah oo candlekii ka horreeyay si xoogan u soo jabsaday kow maanta markaad trade garaynaysa soo shalay confirmation suuq kuma bixin waa inaad maanta heshaa candlekii khilaafa waa inaad heshaa oo asaguna lasoo ingilfin gareeyo marka candlekan 4 hourka ka dhashay iyo candlekii weliga dhayga ahaa waa laba ingilfin oo hal jiha u socda maxaan ku yiri waa laba ingilfin oo hal jiha u socda marka waxaa haysataa 95% inaad candleskan oo dhan aad cuntid haysataa fursad aan caadi ahayn baa suuqa ku haysata ruulskan hadda ku dhaqantay waxa aaminsanahay inaad khasaarahaadu yaraan doonaan faa'iido aan caadi ahayn suuqa ka sameyn doonto okay haddii aan margo aamisid baan ku yiri dhayliga jihada u socdo kow ruulku waa maxay dhayliga jihada u socdo baa go'aamisa tusaale kore sida ka muuqata waxaa tiri sell baa suuqa soo tiri ogowna candleka suuqu ee bayga ah ada waa inaad isha ku haysaa okay suuqiyo one daygii selkaaga soo sameeyay maalintii ugu dambeysay candleki ingilfinka ku soo xirmay maalinta xigta fursadaadu waxa weeye waa in candles buy ah sameysmaan candles buy ah ay sameysmaya waxay ku siin doonaa fursad kaasoo aad ka sugaysay in ingilfin kaliya lagu soo sameeyo candleki buy ah ugu dambeeyay oo socday ingilfin kaliya in lagu soo sameeyo eeganaysa marka si aad lacag sel ugu socotaa uga faa'iidi waa inaa candle buy ah hesha oo ingilfin lagu sameeyo luqadda inaad si fiican u fahanteen baa filaya okay marka intrigi baa helaysa waad haysaa intrigi
waxaa laga yaabaa in suuqu aad tiraahdi jihadiisu waa sell entry time frame-kaadana aad ka dhigato 1 hour ogow candles kasta oo bay aada oo lasoo ingilfingareeyo oo meel muhiim ah kuu taagan waa entry. okay suuqan sell baa ugu jirtaa waa inaa fursad suuqu correction uu kuu galaa correctionkaas waa in ingilfin lagu sameeyaa jaanisa caadi ahayn baa haysta ayagoo bayana waa kan marka qaacidadu hadda way kuu qoran tahay daily bay baa tiri soo ma daily bay markaan yiraahdo waa inaa helaa sell kaasoo aan lower time frame-ka aan ka helayo ingilfin maxaan ka helaya lower time frame-ka si aan ingilfin aan u helo mar labaad waa inaa helaa sell soo laabtay lower time frame-ka kadibna aan bayga tirada badan uga faa'iideysto nidaamka suuqan u shaqeeya saaxiib iyo loo kuwaan laakiin haddii higher time frame-kii ingilfinka ka soo dhacay ah hore ka gashay selkan hadhow soo laaban doonaa baa khasaare ku gelinaya badi dadka marka beginnerska ah waxyaabaha mar walba suuqu minus ugu bilaabo waxa weeye waxaysan haysan lower time frame-kii iyo higher time frame-kii hal kandhal oo laba kandhal oo muhiim ah oo isku jihe u socda qofka hadduu isla helo khasaare iyo wax la laabashaa ma helayo marka rulkan mar walba waa inaad ku shaqaysaa si aad lacag u baygaraysid waa inaad heshaa candle sell ah oo loo ingilfingareeyay dhinaca bayga rulkaas waa isla fahmay waa maxay sawirkan baa noo muujinaya okay tusaalaha haddaan isla qayb galno wax easy saaxiibayaal intaan tusaalaha ka qayb galin waxaan kugu baraarujinaya oo ku xasuusinaya oo mar labaad kugu celinaya cashirka koowaad aan kaga hadalnay xuduudaha candleka mar walba waa inaa xuduudaha candleka aad kala garanaysa haddaad wax walba oo meel ka muuqda ay ingilfin u qaadatid waxaad noqonaysaa qof suuqa ku wareera baa noqonaysaa tusaale ahaan one day-ga suuqu muxuu kuu sameeyey one day-ga suuqu intaanba kuu sameeyey suuqiyo one day-ga sidaan ka ah sidaan ingilfin baa no candlekii ugu dambeeyey oo selka ahaa suuqu intuu dhaqaaqay candlekan ma kor mara oo korkiisa ma ka xirma waa maya maxaa hadda xagga kaaga muuqda candle yar baa kaaga muuqda okay intaad soo oroday oo 4 hour-kii timid 4 hour-kii waa wax noocaana kuu sameeyey waxa dadka khatala baa idin sheegaya wax walba confirmation candleka arkaanba confirmation uga dhigtaan 4 hour bay imaanayaan maxaa hadda 4 hour kaaga muuqda candle yar oo bay ah maxaa sii dulmaray candle weyn oo haddana xoogan oo bay ah laakiin dhaygii ugu dambeeyay waa maxay candlekiisi weli meeshii buu taagaya weli lama jabsan oo dhexdiisa waa lagu dhex jiraa dhaygii ugu dambeeyay halkaan nooga muuqday dhexdiisa waa waxaasoo candle ka dhex dhacayaan waa xaggaan oo candle kaaga muuqda lower time frame ka dhex dhacayaan marka qofka waxaa ku dhacaysa in suuqu waxaana dhanba ay ku noqdaan continuation oo dhulka lala sii galo meeshuu rabay in bay loo aado ingilfinka markuu arko bay raadinaya meeshuu bay sugayay dhulka in lala galo waa ku dhacaysa suuqu jihadii bayga ahayd maaha jihad sare uu ku aado marka waxyaabaha khaladka ah oo dadka badanaa riskiga ku keena waxa weeye waa inaysa higher time frame-kii aysan fahansaneen confirmation ka dhacaya si ay lower time frame-kana uga faa'iidaystaan okay marka naqshadaha candleska xaqiiqatan dadku kuma baraarugsana badi candleska candle confirmation-ku waa waxa 99% go-aanka intrigaada ku siiya intriga waa maxay marka suuqa aragti inaad ka faa'iidaysto lacag ka samayso marka waa inaad xoogga saarta habka u shaqeeyaan candladu habka xuduudahooda ay isku jabsadaan habkay maaragtay isha confirmationada higher time frame waa inaad wixii fahansantahay candleka oo aad fahantina wuxuu ka dhigan yahay inaad fahantay patterniska suuqa ku shaqeynaya patternisku waa maxay waa naqshadaha na siinaya fursadaha aan lacagta ka sameeyno baatanadii shoulderkii double topkii tusaale ahaan waxaa jira candles nooca kan u samaysta evening star bay dadku u yaqaanaan tusaale ahaan laakiin si kale haddaa u fiiris halkan oo kale waxay ka yihiin ingilfin bay ka yihiin waa candle awood badan oo candle yara soo jabsaday wey marka candleska noocan u samaysma walaalayaal waxay noo sheegaan waa maxay waxay sameeyaan waa pattern buu sheegaya patternku sheegaya waa maxay waa head and shoulder waa maxay waa head and shoulder head and shoulder waa maxay waa garab iyo madax head and shoulder head and shoulder marka candlekan markaa fiirisay candlekii ugu dambeeyey
oo bayga ku socday muusan jabsan marka muxuu noqonayaa head and shoulder siman buu noqonayaa oo reversalkiisa waxoogaa khatar uu ku jiro markii isagii laftirkiisu uu nooca noo sameeyo isagii laftirkiisii baa muxuu noo sameynayaa candle baa dhashay candle kala tusaale ahaan dhashay okay candle baa xoog usoo wada jabsaday labadiiba maxaa dhalanaya waxa weeye waa head and shoulder toos reversal xoogan u sameeyay reversal xoogan waa maxay baygu ugu dambeeyay oo saan u socotay waa maxaa ku dhacay si xoogan baa loo soo jabsaday waa maxay baygu ugu dambeeyay waa si xoogan loo soo jabsaday ayaa laftirkooda waa maxay waa candle-kii ugu dambeeyay baa la jabsaday marka candle-isku waa maxay walaalayaal candle-kii ugu dambeeyay oo baygu u socday baa maxaa loo jabsaday si xoogan baa loogu soo wada sheegtay marka wuxuu kuu sheegayaa candladu see head and shoulder haduu imataliyaan dee tan waa maxay waa madaxii kan waa maxay waa garabkii kana waa maxay waa garabkii kale marka candlesku inaysan wax caadi ahayn oo yihiin qofka professionalka la doonayo markuu saddex candle saas kale u wada socota hoos ka siman ay yihiin candleskii muhiimka ay yihiin markuu saan oo kale uu usoo wada jabsada uu yahay candle si xoogan wandheygii confirmation fiican uga bixiyay qofku wuxuu fahmayaa asagoo bas suuq tiro badan oo garba iyo impulsive correction iyo dhaqaaqiyo tiro badan oo isku yimid qofku asagoo fiirin wuxuu horey ka garanayaa macnaha labada candle ay sameynayaan okay candle-ka noocaana waa maxay candle-ka noocaana wuxuu sameynaya dhaqaaq correction dhaqaaq waa maxay continuation buu ka dhigaya candle-ka noocaana way dhac 100% candle-da waa ka dhaca asaga laftirkiisa waa maxay barbar buu engulfing ka yahay candle-da ugu dambeeyay oo dhan buu soo doomaray si xoog leh soo waajibsan candle-ka yarkaa waa maxay correction buu matalaya marka candle-isku kuwa laftirkooda double top bay sheegaan macnaha noocaan oo kale marka walaalayaal candle-du mar walba waxayna barayaan waa maxay waxa ayna barayaan waxa weeye wax muhiim ah bayna barayaan mar walbana waxaan kula talinayaa inaad ku baraarugsanataan oo aad akhrisaan suuqa wayna akhrisaa candle-kan bayga ugu dambeeyay xoog u jabsaday wuu la simayaa weli khatar baa jirta suuqu inuu correction lagu wada noqdo waa uu jabsaday fursad muhiima weeye wayna xisaabaysaa suuqii runahaanta waa ku raaxaysanaysaa suuqan okay casharkan dambe oo aan ka hadlayo xaqiiqatan waxaa la oran karaa keligii baaba istaraatiijiyada waa la oran karaa waxyaabaha uu sameynaya markii aad fiirisaan cajaa'ibta ka dhacaysa suuq waxaan tusayaa tusaalooyin dhowr ah tusayaa oo muhiim idin noqda okay xaggan baa isdul taagaya tusaale ahaan the rule-ku waa maxay walaalayaal candle-ku suuqu meel muhiima noo taagaya meel muhiima uu noo taagaya maxaa ka wadaa meel bay xoogan laga aaday suuqu noo taagaya hoose buu noo taagaya okay candle-kani waa maxay candle-ka ugu dambeeyay ee salka ahaa maxaa daba maray candle awood badan baa daba maray okay candle-ka ugu dambeeyay oo salka ahaa dhexdiisa calooshiisa miyaa lagu jiraa may xoog baa loo dhaaf madaxiisa ugu koreeyay baa laga kormay marka maxaa haysanaa candle engulfing ah oo 100% saxan baa haysanaa si aan maalinta dambe marka aan fursadan uga faa'iideysto rule-ka noo qornaa muxuu ahaa daan xasuusiyo rule-ka noo qornaa muxuu ahaa tusaale ahaan lacagta hadda intaan oo kale noo sameynaysaa soo maaha one day engulfing kaan bay nooga sameynaysaa soo maaha si aad suuq u baygaraysid waa inaad heshaa candle sal ah oo loo engulfing gareeyay dhinaca bay tusaale ahaan kan baan kugu tusayaa rule-kan waxbaa xoogaa ka baarkaysan candle-kan waa maxay candle awood badan weeye soo maha candle-ka awoodda badan maxaa rabaa rule-ku waa maxay sal weeye soo maaha marka saan wax u salgareeyo waa inaa helaa candle bay ah oo haddana lasoo engulfing gareeyay cajaa'ib xaggan maxaa ka dhacay candle bay awood badan baa jabsaday marka 4 hour-ka markaan tago waa maxay maxaa fiirsanayaa candle soo laabtay waan fiirsanayaa marka 2-3 candle baa fiirsanaya ugu yaraan okay maxaa dhacay marka candles baa soo laabtay candlada markii soo laabtay maxaa dhacay candle xoogan baa jabsaday mar walba oo naqshada noocaana dhaca xagga waa maxay waa engulfing candleski salka hay u dambeeyay hada 1 hour-ka aad tagtay oo kale waa maxay waa si xaqiiqsan ka dhaca candleski salka hay u dambeeyay waa maxay candle-ka awoodda weyn oo 4 hour-ka waa jabsaday xaqiiqatan suuqa 100 wax ka yar baqaban maysan naqshada noocaana qofka haduu adeegsado isla markii maxaa dhacay
maxaa dhacay engulfingkaanba uu dhacay oo suuqa qofku markuu galay maxaa dhacay 235 bib baa dhacay 235 bib buu dhacay ma kanalkan keliya go-aan ku qaata may si aan lacag u baygareeyo waana helaa higher time frame candle waana helaa kow labo lower time frame candle waana helaayo waana helaa candles u socda jihadii bay jiha ka soo horjeeda waana helaa oo la engulfing gareeyay waana helaa xaqiiqata suuqa hadaa qalinka la raacday fursadda noocaana boqolaal jeer baa helaysa waa ku raaxaysanaysa xaqiiqatan kaliya waa maxay suuq meel muhiim ah taagan baa fiirsanaysa suuq meel muhiim ah taagan baa fiirsanaysa okay xaggan ka soo qaata tusaale ahaan the last candlekan hadda waa maxay engulfing buu ahaa soo maha okay suuqaani walaalayaal wuxuu ii sameynayay tusaale ahaan intaan ugu dambeysa haddaan isdul taago meel wuxuu ii taagnaa suuqa laga soo salgareyn karo ii taagnaa meel sal xoogan oo kasoo dhacay buu suuqu ii istaagay meel sal xoogan oo kasoo dhacay suuqu ii istaagay engulfing xoogan baana soo dhacay soo maha okay si aan lacagtan fursadda maalinta labaad uga helo waa inaa helaa candles laabtay waa inaa helaa oo la engulfing gareeyay big chance candles laabtay waa maxay suuqu waa maxay 4 hourki waa mid candles baa ii laabtay candleskii ii laabtay oo bayga ahaa laftirkooda waa maxay candlekan baa kasoo dhexbaxay engulfingka awoodda badan baa kasoo dhexbaxay markuu candleka ii soo dhexbaxay chart ratekan waaba gala maxaan soo qabsaday 130 bib baa qaata saas suuqa kugu shaqeynaya jihadiisa hadaa usii trade gareysay waa maxay mar walba oo suuqu engulfing soo sameeyo waa maxay asii gasho waa maxay waa sii cunaysaa mar walba suuqu engulfing sii sameeyo asii gasho waa cunaysaa qolaal trade baa ka qaadan ka dhaca mar walba suuqu engulfing soo sameeyo waa sii qaadanaysaa boqolaal trade baa qaadanaysaa tijaabi waxa aan kuu sheegayo higher time frame mar walba engulfing buuxa oo xuduudi kanalka u dambeeyay jabsaday mar walba aad heshay oo mar walba aad lacagtaan aad dhaqaale ka sameynayso wey mar walba aad lacagtaan dhaqaale ka sameynayso wey mar walba aad lacagtaan dhaqaale ka sameynayso fursado badan buu suuqa sameynaya hadda kanalkan de waa engulfing candleska ugu dambeeyay oo bayga salka u socday wuu jabsaday tusaale ahaan 4 hourka hadda jaa halkaa waxaa kasii cad inuu fool laabasho sameeyey engulfing kalena u qaatay intaasaa sii cuntay rejectionka yarkaa 4 hourka maalinta dambe weeye waa kasii qaadanaysaa 4 hourka hadda haddaan tagno si toosa u arkana marka GBP USD oo kale iyada laftirkeeda waa fursadahan oo iga muuqdeen haddaan kaa tuso marka waxaan ku tusayaa saaxiibayaal fursadaha suuqaani ku siinayo inaba caadi ma aha inaba caadi ma aha qolaal baa ka helaysaa fursadood waxaa ka helaysaa qolaal fursadood baa ka helaysaa tusaale ahaan lacagtan hadda haddaa fiirisid suuqu meel kaloo kuu taagnaa meel suuq waa maxay muhiima buu kuu taagnaa maalinta halkaa heshay meel sal xoogan laga soo yiri suuqa buu kugu soo laabtay marka waxaan fiirinayaa xuduudaha candleka waa maxay candlekaygan engulfing miyaa mise maaha baa fiirinayaa inuu yahay maxaa ii caddaynaya candlekii ugu dambeeyay oo bayga ku socday si xoogan buu uga soo dhexbaxa labadaa candle hadda aad isku fiirisay ugu dambeeyay si xoogan buu uga soo dhexbaxa soo maaha okay maalinta labaad rulka ii qornaa muxuu ahaa 4 hourka ama 1 hourka kii aad entry ka dhigatay waa maxay maalinta labaad maxaa sugayaa
in laabasho yar suuqi ii sameeyo kadibna lasoo engulfin gareeyaa sugaya markaa kadib maxaa dhacaya naqshada noocaana mar walba i dhacdo cajiib maalintii u dambeysay maxaa dhacay walaalayaal candles baa kor u baxay candlesku waa maxay 2-3 weeye candle maxaa loo yaqaanaa haddaad si fiican u faahfaahayso correction bay noqon karaan kadib maxaa dhacay candlesku u dambeeyay oo buyga ii aaday sidaan lacag u salgareeyo waa inaan helaa candles buy aaday oo lasoo engulfin gareeyay candleka hadda xagga ka soo baxay 100% candleladaan buyga u socday buu ka soo dhaxbaxa kadib maxaa helay fursad baa helay fursadu waa maxay lacag badan baa ka faa'iiday iska daadanaya suuq kaliya candlekaas soo hesho waa maxay ilaa intaan kaliya hadaa haysato waa maxay 100 bib baa ka qaad 100 bib baa u yar suuq inuu ku dhaqaaqo naqshada noocaan ah wada adeegsta hadaa si haysatay ka sii macaan mar walba oo candleska day candles buy ay ku yimaadaan candles buy ay ku yimaadaan ilaa one day baa soo confirm gareeyay Soomaa candles buy mar walba ay ku laabtaan oo la soo engulfin gareeyo la soo engulfin gareeyo waa maxay candleladaas la soo liqo candleka ka soo jabsada engulfin baa la yiraahdaa candleka soo jabsada labo candle saddex candle buu ku jabsan karaan hal candle buu ku soo jabsan karaa candleka soo jabsada waa maxay si toos wuxuu sii sheegayaa jiho sii sheegaya استراتيجيات مهمة وهي مر والبا wax ku dabaqaysa cilmiga aad baratay wax ku dabaqaysa dad badan oo one day wixii ka dhacay suuqiyo momentum ku socdo one day rejection yar sameynay before hourki wax yar ka arkay khasaaro gelinaya tani waxay ku noqon doontaa walaalayaal waxay ku noqon doontaa sir aad ku farxday bay ku noqon doontaa dhaqaalaha ku sameysay oo wax badan ay wax xasuusnaatay xaqiiqatan wax walba suuqa kan sira oo ka jira waxaan jeclahay inaan si toos ah loo soo wadaago hordhac buu casharkan loo noqonayaa waxay idin noqonayaa cashar aad ku sameysaan analysis badan aad ku sameysaan tijaabisaan mar walba analysis-ka sameynaysa maxaa sameynaysaa suuqa dul imaanaysaa tusaale ahaan lacagaha USD da dul imaanaysaa saas aad ugu dhufanaysaa waa maxay saas aad ugu dhufanaysaa see dhahaysaa wax dhahaysaa falaartaas u qabanaysaa hadda xagga kor maxaa fiirinaysaa xagga kor fiiri one day ma fiiriyay lacag walba waxa fiirinaysa candle muhiim ah oo candle la jabsaday waa fiirsata hadda lacagtan la yiraahdo AUD candle jabsaday iyo waxa ma arko ka trade gareyn maalinta soo socota sababta ka ah candle si toos ah meel muhiim ah taagan la jabsaday waxa ma arko waa ku xijinaysa saas u fiirinaysa euro USD laftirkeedu candles muhiim ah hadda ii sheegay meesha day saas u fiirinaysa waxaan ka hadlayaa GBP USD lacagtan waa maxay GBP USD saf baa ka maraysa haday falaarta u qabanaysa صفا كاميرا ساس او ودانيسا كان لعagaha oo dhan saas oo fiirsanaysa lacagaha oo dhan saas oo fiirsanaysa DX waayo oo kale possible buy inuu aado soo fiirsanaysa euro USD ajaib kanalki buyga hay u dambeeyay kanal xoogan baa soo jisay possible in 100 bis ka soo dhacdo si rulku muxuu noo ahaa engulfin baa soo dhacay Soomaa engulfinka anigu waxa xaqiiqsanaya oo inuu shaqeynaya ogaanaya rulka ay in kan la bay ay dhashaan kadibna waa maxay engulfin lagu soo sameeyo markaas uu aaminaya waxa haystaa laba direction oo isku kay haysta marka euro USD oo kale marka arko pattern BBE sameynaysa pattern waa maxay meel muhiim ah suuqii taagan yahay kadibna engulfin baa dhacay marka waxaan ku tashanayaa maalinta soo socota lacagtaan oo kale watch listiga sii gashanaya waxaan sugayaa inuu noqosho yar suuqii sameeyo kadibna engulfin lagu sameeyo ilaa one day hadda isku ka diyaariyo Soomaa lacagta hadda waa lacag wali aan shaqeyn one day hadda isku ka diyaariyo candle buyga u dambeeyay candle baa soo jabsaday marka waxaas isha ku haynaysa saaxiibayaal muhiim weeye sirta tan runtii candlesku qofku inuu kala barto habka ay fursadaha ku siinayaan 90% dadka maxaa khasaariya go'aanka u dambeeya oo candleka ku qaadan lahaa muusan qofku garanayn habka candlekaasi uu fursad u bixinayo waxaan rajaynayaa inaad wax weyn faa'iideen khayr badan baa idin rajaynayaa saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh